waxaa jira dad mar walba jecel ama doorbida in ay gooni u noolaadaan, taasna waxay ku dareemaan deganaan iyo raaxo, sida guriga Kellen Jeston. waa guri ku yaal jasiirad laga guuray kuna taal Atlantic Ocean. waxaa la dhisay bilowgii qarnigii 20aad. marka aad fiiriso gurigan waxaad fahmaysaa mahmaahda ah gurigayga waa adduunka oo dhan. maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa qisada guri laga dhisay jabal ku yaal badda dhexdeeda. gurigan waxa uu leeyahay taariikh dheer oo qurxan. haddaysan ahaan lahayn dhibaatooyinka uu maray milkiilaha gurigan, lama dhiseen gurigan cajiibka ah. qisadan saamaynta leh waxay u laabanaysaa sanadkii 1905 waxayna ka dhacday magaalada George ee Mareykanka. waqtigaas Joseph Warton waxa uu magaalada ku lahaa dhowr dhismo. qofka aan aqoon Joseph Warton waxa uu ka mid ahaa maalqabeennada ugu caansan Mareykanka xilligaas. sidoo kale in adeerkiis Warton waxa uu ahaa taajir farta ka xiran. Warton waxa uu ahaa mid ku faana hantidiisa. waxa uu ku taami jiray in uu qasrigiisa kula noolaado ilmihiisa iyo wixii ay sii dhalaan, balse mararka qaar dabaysha waxay kaaga imaataa meel aadan filanayn. waxa ay fariin ugu timid xukuumadda, taasoo ah inay doonayso dhulka uu ku yaal qasrigiisa, isla markaasina xukuumadda doonayso in ay halkaas waddo ka dhisto. Warton wax badan ayuu ka dagaalamay go'aanka xukuumadda ku gaartay in ay dhulkiisa kula wareegto. waxaanu dacwad u gudbiyey maxkamadaha Mareykanka, balse nin xoog leh ayay xaajo u falantaaye. waxa uu ku guuldaraystay dacwaddii, waxaana sidaas dhulkiisa kula wareegtay dowladda. laakiin maxkamadda waxay u xukmisay in magdhow ay siiso dowladda, balse lacagta magdhow ahaanta loo siiyey ma ahayn mid u dhiganta ama u qalanta hantida laga qaatay. waxaa laga yaabaa dadka qaar in ay isweydiiyaan sidee arrintan oo kale uga dhici kartaa dal ay dimuqraadiyad ka jirto. laakiin xaqiiqada waxay tahay in bilowgii qarnigii 20aad Mareykanka waxba kama aqoon dimuqraadiyadda aan ka ahayn magaceeda. Warton waxa uu dareemay niyad-jab iyo walwal, balse waxa uu ku qasbanaa in uu keeno xal si uu u badbaadiyo qoyskiisa. waxaana uu go'aansaday in uu guri ka dhisto meel aysan bini'aadam ka dhoweyn. waxa uu go'aansaday in uu dhisto guri qarniyaal u nagaada qoyskiisa iyo faraciisa dambe. waxa uu arrintaas ka fikirayay maalmo badan, ilaa markii dambe uu go'aansaday in uu gato jasiirad yar oo laga haajiray kuna taal Atlantic Ocean, taasoo u dhow North Janset. mushkiladda keliya waxay ahayd in jasiiraddaas laga haajiray oo aysan qofna deganeyn. laakiin si walba oo ay ahaato, waxa uu go'aansaday in uu iibsado. waxaana uu ku iibsaday ama ku gatay qiimo aad u jaban oo dhan $200. sababta uu go'aankaas u qaatay waxay ahayd in xukuumadda aysan marnaba muhiim u ahayn booska uu ku yaal. sidoo kale ma jiro qof soo damcaya in uu ka qaato. sanadkii 1906 waxa uu dhismo ku bilaabay qasrigan yar, waxaana qalabka dhismaha uu ku soo daabuli jiray doomo yaryar. waxaa garab ku siiyey qoyskiisa. wakhti yar kadib waxa uu dhistay dabaq ka kooban 3 biyaano. xilligaas ujeeddada keliya uu lahaa waxay ahayd in uu nolol degan halkaas ku qaato, balse ma aaminsanayn in qasrigiis yar uu sii nagaan doono sannado badan, kadibna qisadiisa caalamka oo dhan ay ku faafi doonto. dhismahan waxa uu ka koobnaa 23 qol. qolalka jiifka waxay ahaayeen 10. sidoo kale waxa uu lahaa howl fadhi oo aad u weyn, kaasoo qoyska ay ku wada cuntayn jireen. waxa uu rumowday riyadiisii, taasoo ahayd in isaga iyo qoyskiisa ay si degan oo nabad ah kana fog dhibaatada bini'aadamka uga noolaadaan. sanadkii 1938 duufaan xoogan ayaa burburisay waddo yar oo loo marayay guriga Warton ee ku dhex yiil jasiiradda dhexdeeda. waxaana uu noqday mid go'doonsan, balse waxay ku gaari jireen ama uga bixi jireen doon. Warton iyo qoyskiisa waxay gurigan cajiibka ah ku noolaayeen sannado badan, ilaa laga soo gaaro sanadkii 1960. intaas kadib waxaa gurigii iibsaday nin ganacsada ah oo lagu magacaabo Henry Wood. wuxuu ku iibsaday lacag aad u badan. nala wadaag aragtidaada. sideed u aragtaa go'aanka uu qaatay Warton? aragtidiina noogu soo hagaajiya qaybta kommentiga. sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan, sii sheer garay. mahadsanid.